walaalkeen ilaahay u naxariisto maxamed ciise koona ilaahay qabriga ha waasiiciyo oo jannatul firdaws ha geeyo waa la sheegay shakhsi aad u wanaagsan buu aad u qiimo badan aniga garanaya geeridiisu geeri aad igu culus baa aniga ahayd inkastoo dad badan oo eheli geeriyoodeen haddana geeridiisu anay say taabatay iyo saan u ilaawilaahay iyo saaxiibkay waxay ahayd arrin adag maalintii aan aaskiisa xabaash ka qayb galayay baan hadli kari waayo hadalkayga sina qoday maantana inaan sidii noqoto insha Allah waxaan rajaynayaa walaalayaal walaalkeen maxamed ciise geeri caadi ah tii ma garanaysa dar ilaahay uu dhimanay waxay naga dilay cadow khawaarij la yiraahdo bay naga dilay dad badan oo qiimo badan bay sidan oo kale nooga laayeen oo naga dhintay waxaan doonaynaa in dadkeena qiimaha badan maalin ba aynan mid u ooyin ee aynu marun dadkeena u aarno oo aynu nimankan khawaarijta 15 sanadood ka badan dadkeena leeynayay imise qof oo kale qiimo badan baa dhintay imise dhakhtar baa dhintay imise mas'uul oo kala dhintay oo nimankaas laayeen garanayno maanta nimanka dagaal baa lagu jiraa warbaahintu waxa weeye inay noqoto hubka koobaad ee loo adeegsanayo dagaalkaas ee iyagu la dagaalamayna noqotaan baan doonaynaa inaan safka hore ka galaan doonaynaa waxaan doonaynaa nimankaasi inta laga dhamaynayo ay ka dhamaanayaan dalka waa cadow aan inaga tagaynin oo maalin boqof qiimo leh inaga dilaya maxamed ciise qofkii ugu akhlaaqda badnaa ugu magaranaysa deganaa ugu ayuu ahaa maxaa lagu dilay wax lagu dilay garanayna isaga inagu maxaan uga duwanaanaynaa marka dhammaanteen dilkaas ugu wada xukumanay marka waxaan doonaynaa nimankaas inaynu dadkeena u aarno mar yaa oo aynaan u ooyin marka waxaan idin rajaynayaa walaalayaal khayr sidaas saxaafadu isugu duuban tahay ay isaga warhayso ay walaalaha u tahay ayaan doonaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku dayato aan lagu midoobin daladahan qabaa'ilka iyo waxana lagu midoobo daladaha shaqada iyo xirfadaha dadku hadday saa isugu wada xidhan yihiin oo isaga warhayaan dalkeenu wax badan ayaa u hagaagi lahaa wax badan oo xunna waa laga guuri lahaa haddii inta shaqaysa iyo inta wax barata iyo inta caafimaad ka shaqaysa inta war in kastaaba ay gaar isugu xidhan tahay oo iyagu istaageerayso oo dhinacooda ay dalka horumarka uga jiraan wax badan bay noo hagaagi lahaa aad baad mahadsantiin saxaafadu dad qaaliya way qiimo badan halkan oo kaliya kuma baran xagga iyo Soomaaliland iyo Hargeysana sidan oo kale ahaayeen marka walaalayaalow waxaan idin sheegayaa dadkii inaga dilay maxamed ciise iyo dadkii qiimaha lahaa way joogaan iyagu waliba inagana inoo soo diyaar garoobaya barito inay laamiga in gudilaan wadadan agu ku dhintay maxamed ciise laa naxariistay wadadaas oo buu ku dhintay taasoo ba iyo tan mukarraba iyo inagu iska soconayno shaqooyinkeena wadano aan waxba geysan inay saas u kale inoo dilaan kuyo doonaya baa wali jooga walaalayaal waa in dadka iska celino warbaahintu waxa la yiraahdaa hadaa doonay if you want to change the world the most appropriate weapon that can use is media wala yiraahdaa hadaa doonaysa adduunka inaad beddelshado xagga u jeedisid waxa ugu weyn aad isticmaali kartaa waa warbaahintu isbeddelka dalka ka socda qaybaha ka qaadato